رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن على قير وكدوليا qorshaha xukuumadda ee ku salaysan ku shaqaynta rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaa qaar ka mid ah hoteelada Muqdisho kula caweeyay dad shacab ah si uu ogaado baahida talooyinka iyo tabashooyinka ay u hayaan dawladda ee ay doonayaan in wax laga qabto. Ra'iisul Wasaare Khayr ayaa shacabkii la kulmay mid u weydiinayay dhaliilaha iyo amaanta ay u hayaan xukuumadda iyo waxyaabaha muhiimka ay doonayaan in si dhaqso ah wax looga qabto. mudane xasan cali khayr ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa uga jawaabay dadka shacabka su'aalo ku aadanaa go'aano ay xukuumadda hore u qaadatay iyo arrimo ay doonayeen inay wax ka ogaadaan si ay u helaan xogta dhabka ah ama xaqiiqada arrintaasi ay ku salaysan tahay. qaar ka mid ah dadkii la kulmay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane xasan cali khayr oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaan wax ka weydiiyay siday u arkaan in ra'iisul wasaaruhu ugu yimaado aragti isdhaafsi ku salaysan in ogaado baahida iyo siday u arkaan qaabka u shaqeyso xukuumaddiisu. والله waxaa horta ajiiba sida ra'iisul wasaaraha uu runtii wuxuuna soo xasuusiyay dhaqanka aan ra'iisul wasaarayaasha caalamka aan ku aragnay ee saxgalka bulshada ayaa ajiiba oo cid walba aragti walba oo siyaasadeed ee dalka tan dibadda ama tan gudaha uu dadka shacabka uu la wadaagayo ayadoo waliba jaanis fiican oo siinaa waan wax ajiiba waan wax ku daysho wanaagsan waxaan garan karnaa in ra'iisul wasaaruhu uu yahay runtii qof howlkara isla markaasna shaqadan loo igmado u yahay runtii ra'iisul wasaare ugu haboona ee dalka soo mara run ahaantiina aad ka fahmi karto sida ra'iisul arunta u sameeynaa sigoo go'aan walba oo qaadanayo oo la dhirgaranayo ama la shargaranayo shacabka Soomaaliyeed aragtooda waana wax la soo dhaweyn mudan run ahaantiina waxay noo tahay farxad weyn anagu waliba saacado badan u nasiiyay si wanaagsan oo noo dhageysay su'aalaha arrinna si wanaagsan looga jawaabay waxaan leenahay halkaad ka soo Mr. Khayr oo garab taagan Prime Ministerka wadanka oo goor habeena la qaxweynayo bulshadiisa oo nagu soo booqday qaar ka mid ah hoteelada Muqdisho sida hoteelka weyn caanka Maka al-Mukarrama wax aad loogu farxo inuu ka warhayo bulshadiisa siday u nooshahay waa talaab cusub waana soo dhaweynaynaa waana kala warqaadanay wax badan oo ay odayaasha ay u baahnaayeen uu ka dhaadhiciyay waxaan rajaynaynaa dawladda oo dhan wasiiradiisa iyo kulli inay sidaa u shaqeeyaan oo bulshada saaxiib laga noqdo saaxiib laga dhigto si amniga waxa sugi kara bulshada haday dawladda saaxiib la noqoto waxaan rajaynaynaa in sida wadamada caalamka oo kale ee la jaan qaadayso Soomaaliya waana ku faraxsanahay. bismillaahir rahmaanir rahiim waa soo dhaweynaynaa in dhaqaaqa oo mataqaana fiican oo dawladnimada mataqaana muujinayo in mataqaana ay hore u soconayso oo ay mas'uuliyiintu inta ka soo baxaan xarumaha dawladda ay bulshada afkaartooda iyo fikradooda dhageystaan waa soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha aad ugu mahadsan yahay inuu dhageysto shacabka Soomaaliyeed wax badan oo guuxa dadweynaha ah iyo wax ay qabaan talooyin badan waa u sheegnay caawa waxaanu noo sheegay inuu qaado doono insha Allah ta'ala waana ku mahadsan yahay maasha Allah halkan yimid ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali khayr ayaa halbee ka dhigtay inuu dhex galo bulshada Soomaaliyeed intii uu fadhin lahaa xafiiskiisa si uu ogaado baahida shacabka inuu dhageysto talooyinka wanaagsan ee ku jira bulshada Soomaaliyeed taa ayuuna qayb ka ah caweyskan uu la qaatay shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho qaarkood. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.